الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda halkaan igu soo booqatay marka hore waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo mu'asasada karam oo runtii dhayda boogaha bulshada gobolada sool iyo ilaa iyo boorama iyo sanaag iyo khayr allah siiyaan leeyahay waana uga mahadcelinayaa casuumaadii ay ugu casuumeen magaalada laascaano waxaan kaloo u mahadcelinayaa shacabka reer laascaano dhalinyaradooda sida dhiiran ay ii soo dhaweeyeen waxaan aada uga xumahay arrintii foosha xumayd oo xalay saq dhexe ka dhacday magaalada laascaano iyadoo lagu wargeliyey maamulka gobolka inaanu samayn doono barnaamijkaas wacyigelinta xalay saacaddu markii ay ahayd kowdii oo wax yar dhiman waxaa albaabka hoteelka si xanaaq uu ka muuqda igu soo garaacay ciidamada booliiska somalilan oo aanan anagu xilligaas caddayn karin cidda ay ahaayeen oo albaabka la iga soo dhiibay oo caddaynayaa may jirin rag badan oo guuxaya unbaan maqlay waxay ahayd runtii arrin cabsi gelin karta qof walba oo amuurahan oo kale ka shaqeeya oo weliba xilliga la soconayana oo khatartiisa lahaa waxaan hoosta ka xariiqayaa laascaano anigu waxaan u imid inaan ka hadlo dhibaatadu qaadku leeyahay iyo masjidka jaamaca oo jimcaha loo ballansanaa haddii aan la idmo wax aan tareed ku ahaa ama aan hanjabaad ku ahaa may jirin khatar aan naftayda gelinayay oo layga badbaadinayay ma aysan jirin khatar aan cid kale ku hayay ama hoteelka inuu qarax ka dhaco ama aan xilligaas haddii aan lay qabo wax kala samayn lahaa ma aysan jirin booliiskaasi ma aysan wadan warqad amar maxkamadeed oo leeyahay xilligaas ha lasoo qabto haddii wax laygu soo eedeynayo systemka international lowga uu ku shaqeeyo waa in qofka warqad maxkamadeed warrant of arrest marka la wato markaasoo kale albaabka waa lagu soo jebin karaa laakiin booliisku waxaa ku fillayd keliya receptionka inay nood yar ii dhigaan oo ay dhahaan subaxii 8 o'clock saldhigaasaa lagaa rabaa anaana u diyaaraha inaan tago arrintaasi may dhicin waxaan aada ugu mahadcelinayaa raggii markii laiga kaxeeyey saldhigga dhexe markii la geeyey raggii dejiyey oo igu yiri dhibaataa farxumaan la ii geysan waxaa la ii xaqiijiyey arrintaas ninka ka dambeeyey oo amarkeeda lahaa oo doonayay bulshadu intaanu waagu u baryin oo aysan ku baraarugin inuu magaalada iga saaro waa ninka la yiraahdo waa barasaabka gobolka waa ninka la yiraahdo cabdiqani maxamed jiile ninkaasoo intii aan saakadan joogay dhinaca kalena koofiyad wariye anigoo wata inta aan xogta aan aruuriyey ay tahay inuu ka mas-uul ahaa falka foosha xun oo maanta ka taagan magaalada laascaano laba nin oo shacaba askari inta dilay uu asagu meeshuu askariga soo xiri lahaa oo asagu askartii saldhigiisa geystay oo meel gooniya geystay oo taasoo keeni karta inay isku dhacaan qabiilada gobolkaas dega waxaan oranayaa ninkaasi waxa uu wadaa iyo mas-uuliyadda uu hayo iyo habdhaqankiisu isma laha xalay xilliga lay qabanayay wuxuu isticmaalayay qaad ma aaminsani nin aan maskixiyan u joogin oo miyir ahaan u joogin inuu ummadda intaa la eg ka mas-uuliyad qaadi karo dowladda dhexe oo somalilan waxaan halkan ka caddaynayaa inaanay arrintan shaqo ku lahayn ninkaas ayaa ka dambeeyey dowladda dhexe oo somalilanna waxaan leeyahay booliiska somalilan inay habeenbarkii iyagoo qaad cunaya dadka guryaha ku jijabiyaan hadday dowladda somalilan raalli uga tahay dee waa ayaan daro anigu nin britishaan ahay waddanka systeman ku galay oo sharciyan aan kusoo galay xaqna waxaan u leeyahay haddii dacwo laygu leeyahay inaan garbaxo oon subxii tago laakiin habeenbarkii in shacabka reer sool oo aada uga gubtay oon fariimahooda aada ugu diirsaday waxaan leeyahay nabigeennii suubanaa calayhi salaatu wasalaam baa loo diiday inuu maka galo waaba se anigoo bashar bini aadana oo laascaanood layga soo tarxiilay iyadoo intan ka wanaagsan gogosho intan ka ballaaran baan isu iman doonaa waxaan aada uga xumahay dhallinyaradii sii diyaarsatay qoraallada ku saabsan qaadka iyo dhibaatadiisa oo ay saaka 7 subaxnimo ahayd inaan taabuurka la joogo adeerayaal waxaan leeyahay in la dhahoba dhallinyarada looma sheegi karo khatartu qaadku leeyahay taas laftigeeda ayaaba cudur weyn ah
waan isu iman doonaa ka gabya hoygii suugaantaad joogtaan hoygii halyeeyada soomaaliyeed baad joogtaan difaacda qadiyad ka xumahay dhalinyarada reer sool in la dhaho lagama hadli kara qaad hal nin oo shakhsi oo diyaar ah aqoon-yahankii oo diyaar ah jaamacadihii oo diyaar ah masaajidadii oo diyaar ah hal nin oo shakhsi oo isagu beersanale cuna inuu intaasoo qof ku diido gaf bay ku tahay gobolka iyo magaalada tan taariikhiga oo halyeeyadu ka soo bixi jireen marka waxaan leeyahay magaaladii daraawiishta inay fal noocaasi ka dhaco oo wiil yaray ku amar taagleeya oo sakhraansan waa ayaan daro shacabkana aad baan ugu mahadcelinayaa ninkaasna waxaan leeyahay ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba uma qalmo masiirka uu meesha ku fadhiyo waa in talaabana laga qaado waxaad sheegtay laascaano in aad tagtay dadna wax ku gaareen dadka shacabka mayo ku difaacaya bay gaareen bay dhaawacyadu kusoo gaareen ama dhimashadu kusoo gaartay waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaad waxay tahay waxaad tiri somaliland kuma ay arrintaas waxay sheegtay kuwa kaaga sii digtay inaad soo geshid deegaanadeeda miyaysan ahayn arrin qaraska xoornimo ama adigu aad raadinaysay inaad eday noocan oo kale aad jeedisid horta labada su-aalaad noo kala qaad arrinta aad leedahay dad ba wax ku gaareen iyo dad baa dhib gaartay anigu ma oran ma aqaan meelaad ka keentay meelay ku qoran tahayna ma arag dad dhib ku gaartay iyo dad dhaawac ku gaaray arrintan wax ka jiraayo ma jiraan somaliland warqad official dowladda somaliland ka soo baxday oo la leeyahay cawaala ma soo geli karo waddanka meelaan ku arkay ma jirto somaliland last year baan joogay hargeysa waan maraa waan sii maraa wax dhiba kuma qabo marka arrintani waa arrin shaksi ka go-an asagu meesha anagu aan qaadiidka ah asagu qaatoonka ah taasaana aad u aaminsan